kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeennii ugu horreeyay maanta oo Arbaca ah taariikhduna ay tahay 27 May. ciid mubaarak asxaabay meel kastood naga daawanaysaan ciid wanaagsan. haddaba barnaamijka waxaynu ku faahfaahin doonaa wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn. haddaba waxaynu ku bilaabaynaa masjidka barakaysan ee Al-Aqsa iyadoo maanta ay ahayd maalinkii ugu horreeyay Ciidul Adha. maxaa ka dhacay halkaas? haddaba Israa'iiliyiinta waxay isku dayayeen inay dadka muslimiinta ah ka horjoogsadaan inay ku tukadaan salaada ciidda ah Masjid Al-Aqsa iyagoo soo rogay shuruucyo iyo nidaamyo dadka da'dooda iyo waxyaabaha ku saabsan sida caadada ay u ahayd. laakiin waxaa la sheegay dadka in ay isku diyaariyeen markii horeba ay ogaayeen waxa ka iman karaa Israa'iiliyiinta. agagaarka masaajidka ayay sii degeen. haddaba saakii masaajidka barakaysan ee Al-Aqsa waxaa ku oogtay oo ku tukatay salaadii Ciidul Adha 140,000 oo qof oo muslimiina. way yaabeen. qaar ka mid ah yahuudda ayaa waxay yiraahdeen annaga lacag kasta hadaa ku bixino dadka si kasta ugu fasaxno inay diimaha yahuudda isugu soo baxaan waxa soo kara ma dhacaan ma isku soo baxaan tira intaas la eg ee dadkan muslimiinta ah waxa ay aaminsan yihiin oo ay u bururayaan haddii laga celin waayo maxay tahay ma jirto diinta saxda iyo diin qalabsan oo aan sax ahayn ma isku mid ah. marka waxay leeyihiin dadkan iyagoo la hortaagan yahay la cadaadinayo la dhibaayo ayay soo buuxsamaan. annagoo meel kasta u xirnay kaalaya ku hayna 100,000 xataa wax u dhow ma keeni karna dheen yahuuda miisu keeni karo. haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay arrinkaa laga qoray iyadoo waxay sheegtay Al-Jazeera waxay tiri iyadoo cadaadis lagu hayo oo ciidanka gumaystuhu cadaadinayaan ayaa 140,000 oo Falastiiniyiin waxay maanta ku dukadeen salaadii ciidda masjidka barakaysan ee Al-Aqsa. marka cadaadisaa lagu hayaa meel kasta waxaa la dhigay checkpoint waxaa la dhigay meel control dadkii waa la baarayaa adiga 50 sano ma jirtid adiga waxaasaa lagu hayaa saasoo ay tahay inta jabsadaan ay galaan intaasoo 1,000 oo qof ku tukanaysa. yuhuudi marka waxay leeyihiin war annaga kaniisadeen iyo meelaani oo cibaadada aan haysanay markaan dadka isugu wacno waxaas iyo wax u dhow ma noo yimaadaan maxay wax cadaadinaana malay ku leeyihiin. marka meeshaas marka arrinkaasaa ka dhacay saakay masjidka barakaysan ee Al-Aqsa 140,000 oo qof ayaa ku tukatay. ilaahayow ka aqbal salaadooda annagana naga aqbal. marka hawshaas halkaasay martay qodobkaas halkaasaan kaga gudbaynaa. haddaba waxaynu soo gudbaynaa wadahadaladii Iiraan iyo Mareykanka. Iiraan markan iyo Mareykan waa la isku daalay meesha wax ka socda male. nimankii Mareykanka markii la yiri Shiinaha ayaanu diyaar u nahay inuu uraniumkii qaado oo damaanad ka qaado heshiiska uu ka gaabsadayba Trump iyo kooxdiisu wax jawaab ay ka soo saareen maba lahayo ilaa hadda. way fahmeen marka nimankan Shiineeska iyo way fahmeen ninkan Mareykanka inuu cararayo oo uu damaanad iyo waxa kan iyo ka ordaayo oo Shiina inuu soo dhex galo. marka hadda maanta waxaa soo hadlay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa saaka hadlay. wuxuu yiri war Shiinaha haddaydan ogolayn xataa annaga uraniumka qaadayna xiisadan hala dhameeyo. annaga damaanadii uraniumkii wixii la wareegeen Mareykankii hawsha marka inaa wax ka qabataa laga rabaa. muxuu qabanaa marka wax nimankan Ruush iyo Chinese inay meesha kusoo dhawaadaan maba rabo ninkan wuxuu rabaa Pakistan aan geenayo meelahan aan geenayo waxaasuu rabaa. marka hadda marka Ruushkii asaguna wuxuu leeyahay haddii Shiinihii aad diidan tahay annaga qaadayna uranium. haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay
haddaba telefishinka aljaziira wuxuu leeyahay ruushka wuxuu soo bandhigay inuu qaadi doono uraniumka iiraan oo uu iiraan ka qaadi doono ninka la yidhaahdo sergey ryabkov oo ah ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka wuxuu yidhi moscow inay u dirtay washington oo ay u sheegtay inay diyaar u tahay uraniumka iiraan inay iyadu qaado oo markaa iyadu ay waddankeeda geyso si markaasi qorshahan iyo nabadan loo dhammaystiro hindisahaas ayay ruushka u gudbiyeen maraykankii wax jawaab haddana weli lagama hayo marka inay lugooyo meeshaa ka socotay oo iska daba wareeg ay ahayd waa la ogyahay marka xaalku marka halkaasuu maraa nimankan ruushka iyo jeenahana waxay rabaan inay ka dabageeyaan maraykanka markii hawshaa halkaa marayso ayaa isaguna waxaa soo hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka shiinaha haddaba markaan idintusoo wararkii ugu dambeeyey shiinuhu waxay ugu baaqeen maraykanka iyo iiraan labadaba inay gudbiyaan oo ay soo gudbiyaan tanaasulaad inay ka sameeyaan mowqifyada la isku diidan yahay wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha ninka la yidhaahdo Wang Yi ayaa wuxuu sheegay in loo baahan yahay in la xoojiyo xabad joojinta bariga dhexe lana ixtiraamo xabad joojintaas waxaana uu sheegay inuu ka doonayo dhanka maraykanka iyo iiraan labadaba inay tanaasul sameeyaan oo markaasi ay wada hadallada dib ugu soo laabtaan marka wuxuu leeyahay waa in la ixtiraamaa xabad joojinta waa tii iiraan ay ku eedeynaysa ilaa xalay maraykanka asagaa maraakiibteena soo weeraray xabad joojintii jabiyey ogaada adduunkiiow marka meeshaasu marka iyaduna halkaas ayay maraysaa xaalku halkaasuu joogaa waxaa sidoo kale wararka maanta oo cusub ka mid a shirkadihii diyaaradaha rayidka ee israa'iil ayaa meel ay diyaaradahooda dhigtaan weysan meel kasta waxaa buuxiya diyaarado waaweyn oo booyada ah oo shidaal qaada oo maraykanka ciidamadiisu ay leeyihiin eeraboorradii dhan waa lagu baarkimay in yaraa usoo hartay kuwaan rakaabka ah yahuudi marka waxay leeyihiin maraykankan dagaalna kuma jiro dagaal ma socdo hadda ee eeraboorradaha noo banneeya meelihiisa kala ha tago maraykankii marka waxaa laga soo cayriyey wadamadii khaliijka oo dhan waxay dhahan in adeero naga tag diyaaradahaagi waxaa naga qaado hadhow iiraan yaysan annagu nagta naga saarin marka asagii dhan wuxuu isugu tegay israa'iil marka maraykanku waray soo saareen waxay idhahdeen sanadkan inta ka dhiman meel aa uga soconna male diyaaradii joogaysa iyo tii baxaysa iyada u taallaa meesha waa degnay dhehen annaga marka buuqaasa marka wuxuu ka dhex taagan yahay diyaaradihii israa'iil iyo diyaaradihii militariga maraykanka leeyahay iyaguna haddaba marka waan idintusoo wararkii ugu dambeeyay hay-adda wararka u faafisa rasmiga israa'iil waxay sheegtay iyadoo markaa soo xiganaysa hay-ado dhinacyo ammaana in maraykanka ay markaasi u sheegeen inay sii joogi doonaan ciidankooda israa'iil ilaa sanadka inta ka dhiman waxaana ay sheegeen in ay diyaaradooda halkaa ay ooli doonaan oo aan la qaadi doonin ilaa inta xaaladdu ay dhan uga baxayso marka hadda waxay leeyihin maraykanka waxaa lagu jiraa xabad joojin xilli kastaa dagaal dhici karaa ma diyaarada maanta oo dhan soo qaadi karnaa keeni karnaa meel kaloo geynana male meeshaasee noo yaalaya leeyihin marka warkaas isaguna wararka cusub oo ka mid yahay dhanka kale iiraaniyiinta waxaa hadlay ciidanka ilaalada kacaanka iiraan mas-uuliyiin ka tirsan waxay yidhaahdeen shalay waxay jebiyeen maraykanka xabad joojinta waa dul qaadanay oo adduunkii oo dhan baa nagu hagoogtay oo yidhi war joojiya laakiin mar kale ma u dul qaadan doono ogaada haddii maraykanku ay isku dayaan xabad joojin inay jebiyaan inaan ka aamusno suuragal maaha marka maraykanku ha ogaadeen adinkuna ogaada haddii ay dhacdo in mar kale ciidankeenna oo meel jooga ay maraykanku dhibaateeyaan annagu waxaan u qaadanaynaa in xabad joojintii burburtay dagaalkii lagu laabto intaanu barnaamijka ku jirnay waxaa ka mid ah aljaziira waxaa leedahay mas-uul ka tirsan iiraan ayaa wuxuu sheegay in labada dhinacba ay iiraan diyaar u tahay wadaxaajoodkuna in si dhaba loo galo ay diyaar u tahay in dagaalka haddii la aado la yidhaahna ay diyaar u tahay oo ciidankeedu mar walba ay difaac ku jiraan
waxayna ugu baaqday dhexdhexaadiyaashu inay feejignaadaan oo Mareykanku ay ku eedeynaysaa Iiraan inaan la aamini karin oo lugooye iyo dhibaato u wado marka arrinkaasuu waa cusub yahay wararka soo kordho ka mid yahay dhanka kale Xisbullah iyo Israa'iil ayaa iyaguna dagaalamaya dhanka koonfurta Lubnaan Xisbullah waxay sheegeen 32 bartilmaameed oo ciidanka Israa'iil ay ku sugnaayeen in 24 saac ee la soo dhaafay ay weerareen iyadoo dhanka kalena Israa'iil ay weeraro cirka ku qaaday dhowr goobood oo ka tirsan koonfurta Lubnaan marka halkaas iyaduna jugta la iska gelinaya wararkaas ayaa ugu waaweynaa barnaamijkaygii ugu horeeyay maanta oo Arbaca mar kale waxaan idin leenahay asxaabay ciid mubaarak inta aan mar kale kulmayno like gareeyo oo share gareeyo barnaamijka